haddii aan kuu sheego in hal sir oo keliya ay beddeli karto shaqadaada, lacagtaada iyo maskaxdaada, ma rumaysan lahayd? Shimbiruhu ma kaydsadaan cunto bilooyin ah, haddana ma gaajoodaan. Maxay taqaan adiguna aadan ogeyn? Maanta waxaynu ka hadlaynaa mowduuc aad u muhiimsan oo nolosheena aad u anfacaya. Waa tawakkulka Allah subxaanahu wa tacaala inaynu si dhab ah u tala saarano. Tawakkulku ma ahan inaan meel iska fadhiisano oo aan Ilaah kaliya tala saarano, aan dhahan Ilaah bisa ku kalsoonahay, oo aanan sameynin isku dayo, aanan sameynin dadaal. Waxa waaye tawakkulku inaad dadaal la timaadid Allah subxaanahu wa tacaala aad ku kalsoonaatid. Tawakkulka dhabta ah waa midkaas. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri, haddii aad u tala saaran lahaydeen Ilaahay sida ay u tala saartaan shimbiraha, oo shimbiruhu subaxii way baxdaa ayadoo gaajeysan, galabkiina ayadoo dharagsan ayay soo laabataa. Ilaahay wuxuu idin quudin lahaa sida shimbirtoo kale. Micnaheedu waxay tahay ku kalsoonaanta ay ku kalsoon tahay inay Ilaah u dharjin doono, aysan la murugeysanayn, aysan walwal aysan ku haynin. Anaka bini'aadan haddaynu nahnay, walwalka iyo problemka maskaxdeena kama dhamaado. Sababtoo ah waxaynu ka walwaleynaa mustaqbalkeena, waxaan ka walwaleynaa waxbarashadeena, waxaan ka walwaleynaa inaan shaqana laga buriyo, waxaan ka walwaleynaa guurka inuu naga xumaado, waxaan ka walwaleynaa inaan mustaqbalkeena uusan hagaagin. Waxyaalo badan aynu ka walwaleyn ayaa jira. Saasay tahayna Ilaah baan mar walba barinaa oo duceysanaa. Waxa kaliya ee naga maqan qalbigeena ka maqan yahay waxay tahay inaynu ku kalsoonaan, kalsooni buuxda, yaqiin. Waxaa loo baahan yahay al-yaqiinu billah, inaynu Ilaah ku kalsoon, inaynu walwal iyo problem aan iskugu furin. Markaad ogaatid natiijada iyo wax walba inay Ilaah gacantiisa ku jiraan, ma walwaleys. Sababtoo ah waxaad ku kalsoonaan tahay Ilaahay inuu wax walba gacantiisa ay ku jiraan, asiga ku hagaajinayo. Ma walwaleysid, mana ka cabsanaysid, mana imaanayso niyad jab. Sababtoo ah haddii shaygan xataa aad weydid oo aad mar walba ku hami weynid, hadda xataa weydid, micnaheedu waxaad u arkaysaa in shaygaas uusan wanaag kugu jirin ama khayr kugu jirin. Waxaa laga yaabaa in aakhir lagu dib dhigo, micnaha niyadaada marnaba ma jabayso, oo waxaad ku qanacsan tahay in Ilaah subxaanahu wa tacaala uu go'aamiyo iyo sidoo as wax yeelo inay ku tahay wax adiga dan ku ah. Geesinimo ayaad helaysaa marka aad Ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ku kalsoontahay. Waxaad bilaabi kartaa inaad wax isku daydid oo aadan ka cabsanin natiijada. Waxaad soo ogaatay natiijada in Ilaah gacantiisa ku jirto. Adiga waxaa lagaaga baahan yahay inaad dadaal la timaadid, Ilaah subxaanahu wa tacaala aad ku kalsoonaatid. Waxaad bilaabi kartaa ganacsi cusub adigoon walwal iyo cabsi aadan qabin inuu ganacsigaas khasaari karo. Waxaad isku dayaysaa inaad mustaqbal dhisatid adigoo oo aanan ka cabsanin wixii ka dambeeya. Ku kalsoonaanta aan ku kalsoonahay Ilaah subxaanahu wa tacaala ayaa keenaysa arrinkaas. Tusaale, Nabi Muuse iyo qoomkiisii reer Bani Israa'iil markii ay ka baxeen magaalkii, waxaa soo dabagalay Fircoon iyo ciidankiisii. Markii soo carareen kadib waxay soo hor istaageen badii, ciidankiina waa soo dabahayaan. Dadka qoomkii Nabi Muuse waxay dhaheen, waa nala haleel, markaan waa gacantan ku jirnaa. Oo waxay arkaan badiin hortooda ah, Fircoonna uu ka dambeeyo. Aysan jirin meel ay maanta u baxsadaan. Laakiin Nabi Muuse calayhi salaam wuxuu ku kalsoonaa Allah subxaanahu wa tacaala. Wuxuu yiri maya, sidaas ha dhihina. Kallaa inna maciya rabbii sayahdiin. Aniga Ilaah baa ila jira, asigaan i hanuuninaya, asigaa wadda i siinaya. Kadibna waxaa lagu amray inuu ushiisa ku dhufto badda ay wadda, kadibna wadda ay samaysay badii. Meeshaasay ka baxeen qoomkii Fircoon iyo ciidankiisiina badda soo wada galeen. Meeshaasaa lagu wada halaagay. Waxayna tusinaysaa ku kalsoonaanta uu ku kalsoonaa Nabi Muuse Ilaah subxaanahu wa tacaala inuu wadda siinayo, inuu badbaadinayo. Yaqiin ayuu qabay. Tusaale kale, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakar markii ay hijroodeen, waataa ay magaalkii Madiina ay u hijroodeen. Intaysan marka Madiina aadin, nabiga khidooyin ayuu sameeyay iyo inuu wadada u been guuro, wixii soo daba raacay u lumaan. Kadib godow galay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakar ilaahay raali ka noqday. Ciidankii irsanay oo nabiga raadinay iyo Abu Bakar ay wax soo dul istaageen godkii ay ku jireen nabiga iyo Abu Bakar. Abu Bakar marka wuxuu leeyahay ilaahay raali ka noqday, haddii midkood oo lugihiisa hoostiisa soo fiiriyo wayna arkayaan. Nabiga Abu Bakar marka wuxuu u baqayaa nabiga asi naftiisa u cabsamaayo. Wuxuu leeyahay wayna arkayaan nabiga
nabi allah subxaana watacaala nabiga ayaa dejiyey marka wuxuu dhaha maya saas ma ah ina allaha macana ilaah baa noola jira oo saddex nagu ah ha welwelin hana cabsan nama arkayaane yaqiinta iyo kalsoonida waxay ku dhistaa wax weyn nafteenana way noo wanaagsan tahay taasina waxaynu ka baranaynaa nebiyadii saalixiintii kalsoonida ay ku qabeen ilaahay maanta ayadoo adduunka xaalado badan iska bateen dhibaatooyinka iska bateen haddana waxaana laga rabaa inaan u cararno allah subxaanahu watacaala si uu xaalad aan ku jirno keliya ilaahay naga bixi kara keliya asigaa noo hagaaji kara anaka waxaana laga baahan yahay keliya dadaal inuuna dadaalkii la nimaano natiijada iyo inaynu guulaysano iyo inay wax walba noo hagaagaan ilaahay ayaa iska leh subxaanahu watacaala tawakulku waa sababta guusha ay ku timaado haddaad shaqaysanaysid si daacada u shaqeey xaaraanta ka fogow khiyaanada ka fogow inaad wax xadid iska ilaali ku qanacsanaa wixii ku yimaado waxaad heli doontaa barako waxaad heli doontaa sumcad waxaad heli doontaa fursado ka badan marka aad daacad tahay oo aad ilaah ku kalsoon tahay oo aadan khiyaano isdawmarin aadan samaynin ama laaluush aadan qaadanayn 3 tilaabo oo aad bilaabi karto maanta si aad u aragtid natiijada iyo ku kalsoonaanta ilaahay subxaanahu watacaala kow qorshee samee dadaalkaaga sida ugu fiican u samee ha hagrin naftaada intaad awoodid oo dadaal ah samee ducayso qodobka labaad ka hor intaadan bilaabin ku xir qalbigaaga allah subxaanahu watacaala maanta ganacsiga rabaa inaad bilaabo ilaah subxaanahu watacaala qalbigaaga ku xir ganacsigaas qorshee wuxuu u baahan yahay u habay wuxuu ku socon lahaa u diyaari ka fogow inaad khiyaano iyo xaaraan ku sameydid dadka inaad khiyaantid ka fogow ilaah ku guulaysin doona ugu dambeyn qodobka saddexaad ka daawalwalka natiijadu iyo guushu waxay ku jirtaa ilaah gacantiisa qof kale kuma jirto ha ka walwalin inaad guul dareysatid shay ha ka walwalin amaad khasaartaan ha ka walwalin amaan ku dhibtooda adigu dadaalkaad leedahay natiijadu iyo inay guul ka imaanayso ilaah baa iska leh u daana natiijada ha walwalin haddii shimbir yar ay ku kalsoon tahay rabbigeed maxaa kaa diiday adigan ha sugin xaalad inay hagaagto maanta dadaal oo soco kala ku kalsoono allah subxaanahu watacaala wax walbana ilaah gacantiisa ay ku jiraan waxaana laga baahan yahay inaynu nafteena aan wax badan u qabano dadaal badan aan sameyno kadibna aan yaqiin ilaahay qalbigeena aan ku xirno tawakulka dhabta ah waa isku darka laba shay alyaqiinu billaah oo inaad ilaah ku kalsoonaatid iyo inaad dadaal joogto ah la timaadid ugu dambeyn natiijada imaan doonta haddii muuqaalkan oo wax un ku faa'iideeyay kusoo biir miiraad muuqaalka hadduu ku cajabiyey like share comment mahadsanid